إنا مسلمون حيث كان الحق والعدل نكون. munaasabadani ayaa ahayd mid ay ku qalijiminayeen arday dhamaysatay xifdiga quraanka kariimka kana aflaxay markiiska al-Iqra ee magaalada Burco waxaana ka soo qayb galay munaasabadaasi ay ku qalijiminayeen ardaydaasi dhamaysatay quraanka kariimka mas'uuliyiin culimo awdiin waalidiin iyo marti sharaf kale ugu horeynba waxa halkaasi ka hadlay isla markaana faahfaahiyay maraaxilkii uu soo maray markiisku Sheekh Axmed Daahir Cali maamulaha markiiska al-Iqra kaliya maanta waxay kaga duwan tahay waxaan u wada qabanay labada markis ee dariska ee irshaad iyo iqra oo ardayda qalin jabisay labada dhinacba insha Allah taala ay ka joogaan ayay dheer tahay xafladii hore maanta dufcadan qalin jabisay waxa weeyaan 7 arday oo markiskan iqra iyo 10 arday oo markiska irshaad ka socda si guud madrasada ama madaaristaasi sanad kasta sanad ka dambeeya horumarku waa sii siyaada ardayda quraanka dhameysana waa sii korodha ardayda soo kordhaysay ee kala qudhooda cusub way sii bataan tirada ardaydu sare ayay u sii kacdaa ahdaaftii markiiska loo abuuray waxaan oran karnaa waxyaabo kamida ilaahay mahadi way qabsoomeen waxyaabo badan oo kale ilaahay subxaanahu wa ta'ala ayuu ka rajayn macad la yiraahdo macadul fathi oo aad ogtihiin oo kamid ah markiiskan iqra halkan ku yaala wuxuu kamid yahay midhihii markiiska معته كمدي هذا ما أنتظرون هو يسكن الكشاو شيخ أحمد خير الله سيو يردي دعاء هيد حافظا معك يو تاب جرنتي يو هرجرنتي سكشة قيسي اللي بدأوا تالتي أرضي دقيقي أيو كمدها dhankooda iyaguna waxa munaasabadaasi ka hadlay culimo awdiin waalidiin iyo sidoo kale marti sharaf kale kuwaas oo dhamaantood bahalbeliyay ardayda qalin jabisay caruurta wanaagsan ee quraanka dhameystay dubadka rag iyo dumar quraanka ka dhameeyay ilaahay subxaanahu wa ta'ala waxaan uga baryaa inuu ku sugo iyagana waxaan kula talinayaa inaanay ka boodboodin oo aanay is odhanin mar hadda quraanka dhameysteen malcaamadii waa ka weynaateen inay ogaadaan cilmiga quraanku inuu bad yahay bad oo ay tahay in uu qofka ugu khayrka badan dadka uu yahay qofka quraanka intuu bartay quraankana dhigay waxaan ugu baarigaynaa oo tahniideynayna oo u hambalyeynayna ardaydaas ka qalin jabisay baratay quraanka kariimka qowl barta qowlka ugu khayrka badnaa waxaan idin leenahay waa dadaasheen juhdiga iyo markaas tacabka aad geliseen kitaabka rabbi iyo waqtiga aad geliseen ha joojinina xifdiga iyo markaas qiraa'aadka iyo qaybaha kala duwan ay idin harsan halka ka sii wada laakiin waxa la isku dhaafayaa ama maraakiistu ay ku kala duwanaan doontaa ama lagu kala hormarayaa xifdiga quraanka iyo sugistiisa sida uu sugan yahay sida uu yahay mid aan leexleex iyo limidsi lahayn waxa lagu kala tegayaa sida macnaha funuuntiisa kale loogu dhaadhaco qiraa'aadkii iyo cilmi tajwiidkii iyo waxyaalaha kale la xiriira ugu dambeyntiina waxaa munaasabadaasi ka hadlay xildhibaan Rashiid Faarax iyo sidoo kale Suldaan Sheekh Yuusuf Cabdi Cawad iyagoona hambaliyay ardayda dhamaysatay quraanka kariimka kuna bogaadiyay in ay halkaasi ka sii wadaan dadaalka ay ugu jiraan diinta islaamka aad iyo aad baan ugu faraxsanahay da'yartan maraakiista iqra iyo irshaad ka kooban ee halkan maanta quraankii ku dhameeyay ilaahay waxaan idinka baryayaa inuu idinka yeelo kuwa markaa xifdigiisa iyo ku dhaqankiisaba ilaahay isugu daro waalidku aad iyo aad bay u mahadsan yihiin siiba hooyooyinka macallimiinta maraakiistan iyo maamulaha Axmed Daahir dhammaantiin jasaakumullahu khayr waa lagu soo duuray diinteena sida la sheegay ilaahay waxaan uga baryaynaa inuu ilaahay idinku anfaco waxa aan runtii idinka iyo intii idin soo bartay iyo intii idin soo barbaarisayba iyo intii idinku soo xustay ee bisinka idin qabatay inuu ilaahay idinku baarigo horta mid baan idin sheegayaa qarniga aan maanta joogno nin diin bartay baa ka baxaya qarnigii ingiriiska iyo xisaabaadka iyo mathematics soo dhamaaday nin qaalullaahi rasuul bartay ayuu baa ka baxaya tan ugu dambeyntiina waxaa halkaasi shahaadooyin iyo sidoo kale abaalmarino kala duwan la guddoonsiiyey ardaydii dhammaysatay xifdiga quraanka kariimka iyadoona sidoo kale abaalmarino la guddoonsiiyey ardaydii sanad dugsiyeedkii dhammaaday ee markiiska al-Iqra kaalmaha hore ka galay Cabdilaahi Maxamuud Muuse Xudayfi telefishinka caalamiga ee Ariel magaalada Burco adeega cusub ee shirkadda Dahabshiil iyo Dahab haddaba macmil adeegan cusub ee casriga ahi waxa uu ku sahlayaa
in adiga oo jooga gurigaaga amase goobtaada shaqo aad lacag ugu xawishid asxaabtaada iyo ehelkaaga jooga daafaha dunida.